والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. حقني وحنون Virtual Academy. حنون Virtual Academy oo nooga baratay inaan kusoo gudbino maadooyinka laga barto min dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed iyaan xaggan qayb cusub oo ah econometric oo ardaydu badana ka cawdaan oo welibana advanced form of statistics iyaan xaggan kasoo sheekayn doonaa. casharkan wuxuu uu bilow yahay ama uu prerequisite u noqon karaa cid walba oo soo qaadatay aanu soo gudbinaynay maadadii statistics ahayd uga hadafkeenu ay ahayd inaan xaggan aan soo gaarno oo tani hordhac noo sii noqoto iyo lama huraana inaan taasoo fahno inaan tan sii fahno. marka casharkan waa cashar lama huraana oo cid walba oo research soo diyaarinaysa ama buugga qalinjebinta soo diyaarinaysa waa muhiim waana qasab inay ogaadaan si looga shaqeeyo. marka mawduucan aduu suuqa waxaa laga dhigtaa lacag qaali lagu qaataa ilaa $100 $200 baa ayaa lagu dhigtaa, laakiin annaga aan ka doorbidaynaa inay ardaydu ay si bilaashay si fudud ay ku helaan annagu ka duulayna ayaan cashirkan soo diyaarinay. marka cashirkan wuxuu ka mid yahay waa econometrics oo sal u ah statistics ama research data. nooc walbay dataga yihiin, regression hadduu yahay simple renal iyo multiple renal regression hadduu yahay iyo qualitative quantitative mid walba nooc walba uu yahay xaggan waan dul istaagi doonaa. welibana aan ka sheekayn doonaa annagoo kaga shaqaynaynaa qaacidooyin iyo software annagoo isticmaalaynaa yaan kaga shaqayn doonaa. marka min fadlan bal waxaan maanta xaggan aan kaga shaqayn doonaa aan kaga shaqayn doonaa waxa weeyaan qaybtan introduction to econometric baa marka hore aan dul istaagaynaa. maxay ka dhigan tahay econometric? waa maxay good quality of econometric approachkiisusa waa maxay? intee model buu yaa econometric ka hadla? inta waan soo dul istaagi doonaa. mawduuc kale oo lamid oo isna ciidda ka badan oo calculationkiisa fajac iyo gagax laga qaado oo isna simple regression model iyo isna soo sheegid iyo ka sheekayn doonaa. ka haddaanu fahmi weyno mana sii fahmi doono inaan multiple linear regression aan fahno. marka isku daya inaad fahantaan. marka multiple linear regression isna waxaa kasii dambeeya oo ku xiga oo isna si lama huraan in la ogaado loo baahan yahay waxa weeyaan waa annagoo regression analysis isticmaalayna qualitative dataga. qualitativenessna muxuu yahay isna waan dul istaagi doonaa. side to side xaggan aan soo fiirin doonaa waxa weeyaan simple renal regression iyo multiple renal regression as well as qualitative dataga markaan analyze garaynayno bal annagoo isticmaalaynaa software la dhaho SPSS. software la yidhaahdo SPSS which means statistical package for social sciences as well as stata mid kaloo la dhahana waa soo fiirin doonaa. excelna waa soo fiirin doonaa. ciddii taqaano oo ka shaqayn karta programming language kana isna isna waan kaga soo fiirin doonaa hadduu ilaahay waqtina siiyo. at the same time waxaasna kaga soo shaqayn doonaa statistical analysis system midna dhaho saas la dhaho. marka more or less waxaan waa in advanced form of education weeyaan. bal say ay yihiin waan isla fiirin doonaa. inta naga qaadatay intaan kaga gaarsiin karno waan isku daynaa inaan ka kabar garayno. bal maanta aan dul yar istaagno introduction to econometric iyo wuxuu yahay iyo noocu kala baxo inta bal aan fiirino. introduction to econometric. marka econometric maxay ka dhigan tahay? econometric waxba maaha it's the economic measurement. waa cabir ku salaysan dhaqaalaha. macnaha economic measurement baa markaas la dhahaa. muxuu yahay buu yidhi? it's an application of mathematical and statistical technique.
waxaa la isticmaalayaa qaacidooyin iyo statistic baa la isticmaalayaa in order to a data baa loo isticmaalaya in order to collect evidence inaan kasoo ururino on a question of interest on economy marka macnaha price levelka inaan ogaadno consumption theory-ga demand theory Keynesian theory all theoryyaal fara badan baa jira theoryyaashaas inaan ogaano xaaladda ay ku sugan yihiin ee imika waqtigan waaqica yaan cabirkan ku qaadanayna aan kaga soo shaqeynayna waxaa la dhahaa waa econometric baa la dhahaa marka econometrickan wuxuu gudaha uu ku hayaa ama uu badanaa takhasuskiisu uu ka sheekeeya waxa weeyaan waa economic theory waa mathematical economicsna uu ka sheekeeyaa at the same time haddana wuxuu kasii sheekeeyaa economic statistics uu ka sheekeeyaa at the same time haddana wuxuu kasii sheekeeyaa mathematical statistic marka afartaa waa xoog buu isku hayaa marka waa tool aad iyo aad u muhiima oo aad u powerful ah marka econometricana maanta meeshaan ka sheekeynay then marka waxaan niriba ahayd for example Keynesian economics baan ka sheekeyn karnaa Austin economics baan ka sheekeyn Marxist economics baan ka sheekeynaa institutional economics waxaasoo dhan buu kasii sheekeyn doonaa laakiin annaka maadaama qaybta qaacido u badan yahay qaybta qaacidadaasaan iyaan focuska aan culayska saaraynaa marka hadafka uu leeyahay econometricus muxuu yahay hadafka uu leeyahay waxa weeyaan waa afar meelood iyo focuska uu saaraa kaas oo ka koobaad waxa weeyaan waa estimationka macnaha parameteryaasha la estimate garan karaa iyo sameynaya macnaha alpha iyo beta waan soo dhigan doonaa hypothesis testing waxa la yiraahdaa jira marka aad inaad research aad test garayso marka doonaysaa hypothesis marka koobaad ama positive baad oran kartaa ama negative ama null hypothesis baad kasoo bixi kartaa all in all alpha iyo beta ga inaad si estimate garaynaysaa qaybta ka sheekeeya waa econometrickan talabaadna wuxuu sameeyaa testing ama refining buu sameeyaa testing ama refining macnaha wuxuu jeedaa matalan Keynesian theory markaan soo qaadano Keynesian theory maxaan oran karnaa income is a function of consumption is a function of income baan oran karnaa marka qaacidada consumption is a function of income waxay la mid tahay macnaha bal inay consumption is not a function of income way noqon kartaa macnaha ay wax kale uu affect garan kara way dhici kartaa all in all test inuu consumption is a function of income hypothesis aan soo qaadanay oo estimationkii meesha aan ku soo qaadanay ayaan test garaynaa waxaan ku cabiraynaa ku test garaynaa kaasna waxa la dhahaa waa econometric ta kale labaad waa forecasting baadna sameeynaa forecasting seebaan u sameeynaa forecasting macnaha for example Keynesian hadaan soo qaadano consumption is a function of income markaan dhahno consumption is a function of income directly aduu affect garan karo it's a positive yaan oran karnaa or a negative oran karnaa marka all in all wuu forecast samayn karaa ka dhigan tahay at the same time muxuu sameynayaa evaluation of policies yuu sameynayaa evaluation of policies macnaheedu all in all waxaan ugu jeednaa macnaha properties for match models piecemeal models endogenous iyo difference model iyo far badan baa jira oo evaluation lagu sameeyo kaas ayaan uga daleenahay marka hadafka econometric uu leeyahay waa afartan waa inuu estimate gareeyaa test gareeyaa forecast gareeyaa uu ka bacdi uu evaluate gareeyaa then hadana waxaan imika aan dul istaagi doonaa ka bacdi mode intaan aan xaggan aan econometric approach-ka uu leeyahay econometric aan u gelin ka hor bal fadlan aan laba sheeko aan kala saarno model muxuu yahay modelku waa maxay model waxa weeyaan waa suuraynta waxa waaqica jira lagu suuraynayo kaas ayaa la dhahaa macnaha it is a simplified representative of a real world the simplified representative of a real world waxaa la dhahaa model baa la dhahaa
then maxaa markaa looga jeedaa economic model markaa muxuu yahay economic model markaa waxa weeyaan a model on a relation between economic variable kaas markaa maxay sameynayaan relationshipkaas uu soo sheegayaan okay haddii economic model saa yahay maxay ka dhigan tahay econometric model waxa uu ka dhigan yahay it is a combined with assumption about the random nature of the data ga markuu isku soo xugo isku keeno meel ayaa la dhahaa economic model marka all in all marka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa model walba marka la test garaynayo intan process buu maraa marka koobaad maxaa la sameeyaa economic theory baa lasoo diyaarinayaa economic theory-gaas oo ah مثلا consumption theory soo qaadanayna consumption theory-gan muxuu noqonayaa waa economic theory uu ka sheekay hal theory uu ka sheekay consumption economic theory-gaas marka maxaan u bedelaynaa mathematical model baan bedelaynaa macnaha maxaan yiri model waa suurayn real world representative of real world ismana dhihin kiiba marka soo bedelaynaa kiiba lagu bedelaynaa macnaha waxaan u bedelaynaa consumption theory oo dhanayna consumption is a function of income معناها كون waxay la mid tahay f of income si maxaan ku bedelaynaa iyadii oo mathematical expression soo bedelaynaa then markaan aan xagaa bedelno kabacdi maxaan hadana usii bedelaynaa econometric model baan usii bedelaynaa economic model ka seebaan ugu bedelaynaa macnaha oo goordhowd waa waxaan riba ahayd economic model wuxuu afar shay markaa uu just istaagaa estimate buu sameeyaa marka waa inaan estimate garayna ka dhiganta xagan marka maxaa xagan alpha iyo beta baan kusoo dareynaa consumption is a function of income kima marka kusoo dareynaa alpha iyo beta baan guyaan kusoo dareynaa markaan saas aan sameeyno waxay noqotay waxaan bedelay ka dhiganta econometric model baan bedelnay ka dhigantahay ka bacdi markaan xagan marayno iyaan hadaba suuqan galaynaa suuqii markaan galaynaa bal consumption is a function of mu yahay waa inaan test garaynaa seven test garayna data baan soo kala garayna data maxaan aan soo kala garayno side to side hadana maxaa xaga jirta waxa jirta information kale waa inaan ku soo beerinaa information kaas oo ah how much we collect what type of data we need and from whom we collect waxa soo dhan baan ku soo dareynaa data-geeni baan xoojinaynaa ka bacdi maxaa sameeynaa modelkiiba markaa ayaan estimate garaynaa modelkan estimate garaynay already maxay alpha iyo beta-gii waan sheegnay ahayd which is consumption is a function of income markaan slope iyo intercept labadaba soo saarayna ka bacdi test of hypothesis baan markaa yaa imanayay ka dhigan tahay wixii aan soo diyaarinay ma test baan ka dhigaynaa ka bacdi wixii aan helay baan interpret sameeynaa this is method kan waa method walba oo researcher nin walba researcher uu mara yaa okay hadii xagga aan kaga soo gudubno marka bal waxaan u gudubinaa types of data intee kala baxaan data waxay u kala baxaan afar goor u kala baxaan kaas oo ah time series data bal lahaa cross sectional data bal lahaa pooled iyo panel afarta bal kala yiraahdaa marka time series data wuxuu ka waa maxay ka dhigan tahay all marka already waxaan jirnaa data-gii waan niminay model shan diyaarnay kabacdi waxaan u soconaa inaan data soo ururino data-gan soo ururino bal intaan u guudo maxaa markaa waa inaan ogaadno loo baahan yahay data-gu intee uu kala baxaa then time series data-ga markaan leenahay it is a collection of observation for a single subject hal subject bayaan u soo ururinayna macnaha for example xagan waxa ay ugu yaala commercial bank of Ethiopia baa laga soo qaaday sanadkii 2014 2015 iyo 2016 inta branch ay lahaayeen baa markaa meeshii ku xusan macnaha for a single subject hal subject oo ah commercial bank oo what or waqti oo interval marka noocan data-ga loo soo ururiyo data-ga nooca loo soo ururiyo waxa la dhahaa time series data la dhahaa data kale ku xigo waxa jirta cross sectional data la dhahaa cross sectional data gan waxa uu yahay waa data on more variable collected at a point in time macnaha kanimka waxa kala duwan source-gii baa kala duwan waqtigii la ururinayay laakiin waa isku mid
حاجة مركا دي the same example نسي قادنا وحا commercial bank of Ethiopia أواش international bank نيب international bank صدح بانك أو كل دوين بمركا يا أو حال سنة يا لغو سوق يا لغو سوق لا شيء بكرة جنتا هاي مركا حال سنة حاجة is not one subject 3 subject وياه لكن وقت جوزا حلقة نوعا مركا data لو صدر يا واحد على cross sectional data مركا research يا قاعد كسر في سال data جاي وحنا نقول كرا بدل كرتا cross sectional أما data وحنا نقول time series ونقول كرا يا وأنا نشوف شكتا pool data قلنا محويين و is a cross sectional observation معناها over a time but an unit does not have to be the same unit من نقضوا معها مركا حاجة waxaan ku kana commercial bank of Ethiopia أو international bank نب أو صدح وقتي أو كان يال laga soo qaaday oo hadana sanadkii baadana isla marka la busaa wada noqdeen ag commercial bank iyo Awash International hal sano iyo laba within the same year two different subjects kana kala marka muxuu noqonayaa waa cross sectional noqonaya at the same time the NIB iyo BD bank labaduba marka 2015 baa lagu soo qaaday WB iyo UB isna 2016 yaa lagu soo qaaday marka waxa weyn waa special type of cross sectional data laakiin oo ka yar fara badan baa marka maxaa la dhahaa pooled data wala panel ama longitudinal data kana waxa la yiraahdaa waxa weeyaan subjectigi ba xagan wuxuu a special type of pooled data in which the same cross sectional unit is surveyed over a time halkii baa dhowr goor lagu soo noqonaya oo data-ga laga qaadayaa ka dhigan tahay then haddaan hadda xagan kaga gudubno haddana waxaan sikadee aanu sii guda galaynaa types of variables waxaa jirta waa saddexda kala baxaan kaas oo ah dependent variable iyo independent variable dependent variable waa kaan inaan ogaano aan rabno independent variable na waxa weeyaan kii ah in dependent variable waa kii termigii aan matalan waxa ogaan rabtaa ninbaad wuxuu soo sameyn rabaa matalan inuu ka ogaado ardayda iskoolka joogta maskaxdooda IQ-kooda inuu ogaado rabaa marka research uu sameyn rabaa waxa IQ waa meesha maxay noqonaysaa IQ-gaas inuu ogaado ka rabaa then IQ-gaas waa dependent variable IQ-gaas marka maxay ku ogaado rabaa testigii uu siinayay macnaha cuntada cunayaan factor-radan kale fara badan ee IQ-gaas u sii geeyeen waxay noqon karaa kuwaas independent variable binoqonaya marka shaygii is an explained variable la faahfaahinayay muxuu yahay kaas waa dependent variable determined variable ama indeed endogenous variable inta baa la dhahaa independent variable explanatory variable waa kii laga sheekeynayay exogenous-kii with determinant variable marka labadaas waxaa dana usii dhexeeya mid kaloo control ah marka research walba cabir walba la isticmaalayo adduunkan ka jira labada saddex variable baa laga shaqeeyaa inta variable baa computerka la fiil garayaa si iyada looga shaqeynayo waan fiirin doonaa quantitative iyo qualitative variable baadan xagana fiirinaa quantitative waa iyo qualitative shay la cabir karo lab iyo dhadig markaan leenahay kaas waa qualitative weeyaan quantitative waa waxaan tirin karno data-ga marka la tirin karo 1 2 3 4 loo tirin karo waxaa la dhahaa waa quantitative marka quantitative kaas labo si kala baxaa waxaa la kala yiraahdaa discrete variable iyo continuous variable baa la kala yiraahdaa discrete variable marka aan leenahay waa countable kana 1 2 3 4 kan san u tirinayo waa countable kaas waa discrete variable baa la dhahaa continuous variable kan waxa weeyaan kaasi waa measurable kan cabir karno matalan height oo kale cabirka qofka waa intaas centimeter waa intaas age-kiis waa intaas meel kuma cayina laakiin waa wax la cabir karo oo meel la dhigi karo that's why continuous variable markaasna uu yahay oo quantitative process dhaxgaliya quantitative variable kan wuxuu si kala baxaa afar buu kala baxaa ordinal nominal categorical iyo binary
marka kuwan macaliyiko toos example on isticmaalna software program isticmaalna ayaan ka shaqeyn doonaa intaan marka cashirkii maanta aan soo gabagabaynin موضوع عن وضع بيابان عن فيرنا أو property of econometric model properties أي كود سميهين وامحي goodness of model is based on the following property هل model is good مركلا دها أما goodness مركلا دها وإنه شنت شيء وجزاها كهيا كوبا دوحنا theoretical possibility وإنه theoretically وشيء وعبر كقولها وكوقها explanatory ability وإنه explain وكذا شيء explanatory جيس وأدفع عليه accuracy estimate of parameter كاس بيتا يا ألفا وعمد سفي عمد وقح كرا وإنه نقضى forecasting ability وإنه ينشامد هذا شيء أي في عنتها واحد من تجيله لجني وإنه نقضى هي simplicity وإنه متفوض ونقضى مركا ما أنت عشر كحكنا ينكو كبكبينا عشر كحجة أو أنكو استعمالنا software وقصي شقينا simple linear regression يعني فضلا حاجة عشر كحجة ونقضى فضلا statistics يعني صو بلوني كاتب ويرى نقضة أو صافيريا قيبتي وجودن بيسي عن مرني measure of dispersion measure of central tendency كان صو شكيني mean more media كان صو شكيني interquartile range كانوا صو شكيني واحد الله مستعان مركم حنو هدي واحد قيبتها صح إنه بس هاريسي واحد measure of dispersion كاسنا only variance iyo standard deviation كاسنا كسر شكلنا بعيد لكن كال أنتي كان لما تقاعدين كريو زين كا نصف يرن دونا إن شاء الله مركا عشر كحيجة أو simple linear regression السلام عليكم ورحمة الله وبركاته